اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. maanta halkan waxaynu isugu nimi harimo sharafeed uu inoo sameeyey Saciid Cabdisamed Saciid Culey oo ah musharax golaha deegaanka musharaxiinta aan golaha deegaanka u soo xoray kuwa safka hore kaga jira ee aan doonayno dalka iyo magaalada bayna u shaqeeyaan sababtan uu qada sharafta u sameeyey waxa weeye inuu kulan hoose la yeesho kuna maamuuso qada sharaftan warbaahinta Somaliland ee maanta halkan joogta waxa sharaf u ah xisbiga wicid inaanu maanta halkan isugu yeedhno labeentii warbaahinta Somaliland oo runtii sharaf iyo ixtiraam badan naga mudan sideedaba de markaanu meelaha ka hadlayno ama saddex wariyaan isaragnaa ama afar wariye marka intaas oo saxafiyo caan ku soo fadhiistaan xitaa hadalkii baa ka khaldamayaba intaas oo editor baa kor fadhiyo intaas oo qoraaba kor fadhiya marka ninkii loo leeyahay Salmadeel madaxweynaha hore South Africa ayaa markii uu jeelka ka soo baxay 30 sano oo xidhnaa ayaa saxaafadu la horumariyay marka bariga hore way jirin kameradan zoom tele afka dhaadheer leh tabuugiisa waxa ku qoran wuxuu yiri markii aan soo baxay leeyahay waa lagu sii daaya soo bax waxay ugu dareed buu markii 400 oo qori oo aad moodo bishiika afka laga qabtay warnimo ku soo kala wark sii day wuxuu sheegay kamarada zoom tele dhaadheer marka kulli marka saxafiyiin fara badan hortooda ka hadlayso waxay noqonaysaa you have to watch your words in badan aad ilaalisaa bay noqonaysaa anigu xafladda waan inoo furay waana la iga dambeyn doonaa waxaan leeyahay warbaahinta Somaliland inamada iyo hablaha geesiyaasha ee qarankeena u qaabilsan waaxdii ugu muhiimsanayd oo ah warbaahintu waxay qayb weyn ka yihiin horumarka Somaliland maanta lagu majiiranayo 30 sano u dambeeyay Somaliland halkay soo gaadhay waxa qayb weyn ku leh warbaahinta sida jamhuuriyadda Somaliland markii ay Soomaaliya burburtay Somaliland dib xornimada la soo noqotay ay Soomaalida kale nidaamka dawladnimo oo kaga dayato jamhuuriyadda Somaliland ayaa warbaahinta Somaliland looga dayda saxaafadda oo horiyaalka dadka bariga Afrika ku nool ee afka Soomaaliga ku hadla hardoolkooda saxaafaddu waxa weeye idinka kuwii lagu deynayay baatiin sidaas oo tahay de wadankana idinka ayaa u maqan maanta waxaan isku qiyaasayaa oo isku mid ka dhigayaa geesiyaasha ciidamada geesiyaasha Somaliland ee qoryaha sida ee wadankan habeenay maalin heegan ugu jira nabadgelyadiisa iyo inamadiina iyo hablaha geesiyaasha ee qaranka ugu adeegaya qalinkooda run ahaantii waa somehow isku mid baatiin labadiinuba waxay tiin danjireyaal qaran idinku saxaafadda waa ku tabacdaan dalkiina iyo dadkiina u shaqeysaan waxana laga yaabaa end of the day in haddana sidii aad u shaqeyseen wax hagar la'aan aydaan u helin hadday noqoto mulkiilayaasha warbaahinta ayuunbaa dee manfaca wixii warbaahin ka soo baxana iska qaata saxaafadda markaa iyo saxafiyiinta in la daryeelo hoos loo eego aad baan u jeclaan lahaa aadna waan idinka mahad celinayaa shaqadiina fiican ay qabataan sidoo kale iyadana waxaa jirta dee wax wanaagsan marka la sheegana haddana kolley negative impactina waa jiraa saxafiyiinta reer Somaliland iskuma jiraan qaar horumarka dalkooda jecel oo dee hore u socdo oo si fiican ugu shaqeeya qarankuna way jiraan qaar haddii badankada leeyahay surmaseegtooyin aan laga waayno waa jiraan imika Soomaaliya iyadoo xaafad qurato Muqdisho ku taala ay dawladda Soomaaliya ku kooban tahay ayaa haddana saxafiyiinta reer Soomaaliya noo amaanay wax kale inooga dhigaan innagana qaar ka mid ah warbaahinteedu habeenkii markii waxaad arkaysaa iyago baraha bulshada qarankeena ku dacaydeynaya madaxdeena naanayso u bixinaya innagu naanaysaha ay u bixiyaan madaxdooda ma naqaano laakiin sidoo kuwaynu halkan ka sheegnaa madaxdeena hadhow lagu soo caayaa marka waxa weeye Soomaalidu waxay tira geljir aniga waana kala jirtaa dad Soomaaliyeenu nahay laakiin si jamhuuriyadda Somaliland ka soo jeednaa qarankeena inaynu ilaashano si wada jira aynu la jecelo wada yeelano oo wixii dhaqamaa ka ilaalino oo sawirka quruxda badan iyo hadalka fiican aynu ka horeysiino ka xun iyo hadalka qaraad ayaan ku soo jeedinayaa waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay ku soo dhawaada harimo sharafeedka oo toos loogu bilaabi doonta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.